السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka soo bandhigaynaa registration form sida loo sameeyo. Haddaba markaad samayso registration form marka hore waa inaad haysatay SQL server aan waxaan isticmaalay 2012 waxaad soo kale isticmaali kartaa 2008 ama 2014 iyo 16 intaba waana isku mid waxa lagu wada qorayo SQL structure query language. laba option baad haysataa markaad soo kiciso SQL kaaga inaad isticmaasho waxa la yiraahdo Windows authentication oo soo user iyo password mid ku weydiinayna inaad isticmaasho SQL server authentication oo user iyo password bale. Haddaba waxaan maanta ku isticmaalnaa Windows authentication. Markaan dadna ka doorano waxaan leenahay connect. Inta kadib si aad table iyo database u samayso laba option baad haysataa inaan graphic ahaan ku sameeyno iyo inaan code ahaan ku qorno. Inaan graphic ku sameeyno right click inaan new database nidhaahno iyo inaan query ku dhufo. Marka waxaan isticmaalnaa query oo aad u fudud runtii. Si aad database u samayso waxaad rabtaa create database inta waxaad leedahay magacaabeynu bixinna waxaan leenahay registration database. Waxaan leenahay go kadib waxaan leenahay use waxaan leenahay registration db leenahay go kadib waxaan samayn doonaa table keena waxaan leenahay create table kadib waxaan u bixin doonaa users kadib waxaan leenahay waxaan users uga baahan waxaan u baahanahay username waxaan leenahay info data type kiisa kadib waxaan ka dhigi doonaa primary key sababtuna isticmaal waxa weeye in user la mid uu soo gelin meesha tan soo kale waxaan qori doonaa password waxaan leenahay isagana data isaga ka dhigi doonaa info data type kiisa maxaa labaad inuu baahanay inaan qofka helo magaciisa waxaan leenahay first name isaga waxaan leenahay waa info waxaan kale qori doonaa last name kiisa qofka last name info waxaan soo kale qori doonaa addresska qofka waxaan leenahay iyadana waa info waxaan soo kala qoraynaa telefoonka wixii kale aad u baahatana waad ku wada qori kartaa kadibna waxaan xidhi doonaa bracket intaa kadib waxaan leenahay execute hadda waxay noo samaysmay table-kii iyo database-kiiba intaa kadib waxaan eegi doonaa bal sidoo samayso waxaan leenahay select all from or start to all from users dan waxaan samayn doonaa highlight kadib waxaan odhanaa execute inta kadib waxaan arkaynaa hadda table-kan uu maran yahay haddaba table-kii waa inaynu data gelin si aynu data gelin waxaan leenahay insert into users kadib waxaan leenahay values kadib waxaan gelinaa value-yadii waxaa inoogu horreeyay username tusaalahaan ka dhiganaa admin password waxaan ka dhiganaa 1 2 3 4 5 waxaynu gelin doonaa kale qofka magaciisa ka soo qaad tusaalahaan Saciid last name-kiisana ka soo qaad Max waxaan kasoo kala gelin doonaa addresskii Hargeysa waxaan gelinaa telefoonka isagu mar hadduu yahay integer uma baahna in loo isticmaalo single code ka soo qaad telefoonka 442 waa kayga kadibna waxaan xidhaynaa bracketkii intaa kadib waxaan highlight saaraynaa line-ka yar ayaan qornay dan waxaan leenahay execute hadda wuu galay inuu haddaba database-kii noo save garay maxaan ku hubinaynaa waxaan leenahay select waa kan datada hadda way gashay okay halka waxaan kaga baxnaa marka database-kii aynu hadda sameynay su'aal baa laga yaabaa in dadku isweydiiyaan password misan uu muuqanaya mar walba maya waxaan isaga isticmaali doonaa hadhow markaynu page-ka dhamaystirno wax loo yaqaano maxaa la encryption insha Allah mid kamid ah waxaan soo kicinay hadda SQL server waxaan soo kicinay Microsoft Visual Studio kadib waxaan doonaa new project sina hore soo sheegnay ama waxaan tegaynaa file ama waxaan taaban doonaa control shift iyo n haddaynu markaa imkan dhahno new project-keeni waxaan ka dooran doonaa C# maadaama luqadan isticmaalnaa C# tahay Windows kadibna waxaan tegi doonaa Windows Form application intaa kadib waxaan halkan ku qoraynaa magaca aynu doono project aynu bixino tusaalahaan waxaynu leenahay phone registration waxaan ka dhigi doonaa database oo telefoonada iyo dadka waxooda ku save gareysano dadna okay baynu odhanaynaa intaa kadib markay noo soo kacdo shayga u horeeya ee program la sameeya waa login kadibna waxaan samayn doonaa haddana registration key markaa bal formkan aynu ka qaadno inuu yahay key loginka si aynu u samayno waxaynu u baahanay marka hore inaan soo kicino toolbox-keena kadibna waxaan taaban doonaa outside-ka kadib halkaa laba option baynu haysanaa si aynu text box-yada ugu soo drop garayno oo aynu uga dhigno drop and drag waxaynu samayn doonaa inaan halkaa ku qorro iyo inaan halkaa ka dhex baadhno waxaan u baahanay text box haddaynu halkaa ka baadhno in ka dhexlayna haddii kalena iron halkan iskaga qorayna text waxaan leenahay drop and drag yar soo jiid kadibna kana copy weyn samaysan halkan dhigan
waxaan soo kala u baahannahay level kan halkan aan soo dhigi isagana saasoo kale ayaan halkaas barbar dhigaynaa kadib waxaan u bixin doonaa magacii ka waxaan leenahay username kana waxaan odhanaynaa simply password intaa kadib waxaan u baahannahay button halkaa buttonkaas ka soo jeedana halkan u dhigayna buttonka waxaan u bixinaynaa isagana login intaa markaynu samayno waxaan haddaba xoogay yara qurxinaynaa buttonkeena fartii xasiinu weynayno laba option baynu haysanaa inaynu fontiga kala bixino iyo inaynu halkan tagno deedna shaayirta taabano halkan inoo furanto haddaad bold doonayso waad ka dhigi kartaa farta nooceedana waad iska bedeli kartaa sidoo kale size-ka farta ayaad ballaarsan kartaa kadib waxaan leenahay okay intaa kadib halkan in yar intaan highlight saaro ayaynu kala turkinaynaa kana in yar baynu weyneynaynaa si uu inoogu qurxaysto okay intaa kadib waxaanu dhisaynaa haddaba database-keena waxaanu isticmaali doonaa wax loo yaqaano markaa store procedure sidaynu markaa store procedure-kii u samayno waxaanu u baahanay marka hore inaynu store procedure-kii kusoo samayno halka kan waa SQL-kii baan dib ugu noqonay kadibna waxaan leenahay create procedure kadibna waxaan u bixin doonaa kasoo qaad get users dadna waxaan leenahay labada data type at username anfaker 50 soo kale waxaan leenahay password anfaker 50 laga yaabaa inaad isweydiiso maxaa ka qorana primary kii loo geliyay kana looga daayay kana hadda wuxuu noo qabanayaa function-kani oo SQL query-gii waa kii shaqada inoo qabanayay marka looma baahna in lagu qoro waxaan leenahay began kadibna waxaan leenahay select waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano count waxaan leenahay kasoo dooro calaamadda star oo all ah from baynu dabadeedna leenahay kadibna waxaan qornaa table name-ka users haddaba shuruud baan ku xidhanaa where baan leenahay where username-keeni uu la mid yahay at username oo ah parameterka waa marka taas waxay sheegtaa in la isla check-gareeyo labadaba hadduu labada mid ka mid uu false sheeka kalno ma soo akhriyo haddii uu labaduba ay true yihiin uu soo wada akhriyo marka waxaan leenahay password idin waxaan leenahay at password intaa markaynu samayno kadib waynu ka tegaynaa waxaan leenahay deedna empty intaasaynu deedna highlight saarana kadib waxaan leenahay execute saa waxay nooga samaysay markaa procedure-kii magacaasoo keliya hadhow qaadan doono waxaynu mar labaad haddana dib ugu noqon doonaa SQL maxaa la Visual Studio-ni halka button-ka baynu markaa double click siinaynaa marka haddaba si aynu u samayno tii waxaynu ugu horreeya kusoo xidhaynaa waxa weeyaan connection-ka waxaan halka ugu horreyso ku qeexaynaa using system data.sql oo inooga shaqaysiin doona korarka SQL-ka halkaasaynu iman doonaa maadaama class isticmaalno inta hore class waa la isku yiraahdaa class-ka aynu isticmaalno dhexdiisa qaybta public-ga waxaanu ku maartay declare gareyn doonaa connection-keena waxaan leenahay string connection-ka dhowr nooc baa dadku kala samaystaan san waa sida ugu easy-san ee loo samaysan karo ayay ka mid tahay halka waxaan qornaa double quote dabadeedna calaamaddaas aynu dhiganaa sidaan connection-ka markaa ugu xidhno waxaan u baahanay inaynu tagno tool kadibna aynu dhahno connect to database laba option ba halkan iyaduna kasii jira inaad halkan magacii SQL-ka haddaad xasuusan tahay iyo computer-kaaga aad ku qorto iyo inaad ishaa yar soo furto kadibna xogay aad sugto haddaynu markaan nidhaa magacii aad garan weydo tusaale waxaad tegaysaa SQL-kaagii waxaad leedahay connect magaca yar baad kasoo koobiyeysan kadibna kan waad iska xidhi waxaad markaa dib ugu noqon halkan right click baad sii baro dadna waxaad oran doontaa paste kadib halkan database-keeni baynu eegi database-ka magaca inuu bixinay muxuu ahaa registration database halkan haddaynu markaa registration ku qorro isagaa markaba soo dhigaya haddii kale ishaa yar baynu furi baynu ka arki deedna si aad u tijaabiso waxaad leedahay test connection hadda wuxuu inoo sheegay in connection-keenu sax yahay intaa kadib waxaan leenahay okay markayna halkan inoogu soo daraya mar hadduu inoogu soo daro server explorer-ka uu leeyahay Visual Studio waxaanu siinaynaa right click properties kadibna properties-ka dhexdiisa halkay ku talo connection string ayaynu qoraalka ku yeelan dhammaantiisa soo koobiyeysanayna marka hadda double click siisan highlight ba ku wada fulay hadii kale adaa wada highlight gareynaya right click copy kadib halkan aad soo dhigaysa markaynu paste nidhaahno waxaa laga yaabaa inaad aragto halka casaan yar inuu kaa saaro kombiyuutarada qaarkood baa casaan kaa saara marka ilaa intuu casaan kaa saarayna kuma shaqeynayo connection-kaagii laba option baad haysataa inaad backspace labaad ku darto iyo inaad xagga ugu horreysa ka dhigto calaamadda at intaa kadib waxaanu tegaynaa halkii button-keeni
buttonkeena inta yar waxa ka timiday buttonkeen markii double click soo siino waa kan double click button buttonkeena waxa leenahay hadaba SQL connection kadib waxaan u bixinaynaa variable name connection SQL connection kadibna waxaan soo qaadanaynaa connection keeni inoo siday variable name kan oo connection kii inoo siday waa ka halkan jooga inta markii soo sameysano inta markii soo sameyno mar labaad waxaan ku soo noqonaa halkan waxaan leenahay SQL command cmd equal new SQL command sida ay tumad u qoraysaa kadib halka dhabarkooda dhigi maxaynu u soo bixnay store procedure-keena get user space niri get user space line connection key kadib halkan inta inta kadib waxaan qornaa mar haddii store procedure isticmaalo waxa loo yaqaan cmd dabadeetana waxaan oranaynaa command type equal baynu leenahay kadib waxaan qorinaa command type dot store procedure then waxaan dhignaa semicolon kadib inta waxaan sameyn doonaa labadii parameter ee data lagu soo akhriyo waxaan leenahay cmd kan ay leeno sida function ki shaqada inoo sida SQL waa kan kadibna waxaan leenahay parameters add with view kadibna waxaan qorinaa waxa kii ugu horeeyay username waxaan leenahay marka text box wanka data lagu qoro waxaad ku qaadaysaa parameterka userka soo kale waxaan leenahay cmd.parameters add with view hadana mar labaad baan leenahay isagana password kan halka isagana ku qaad waxaan leenahay isna text box suuqa password ka laga soo geliyo halka keen inta markaan sameeyno waxaan furaynaa connection open baan leenahay kadibna halka waxaan ku qornaa SQL data adapter da waa variable name waxa doontaad u bixsan kartaa new SQL data adapter kadibna cmd oo hakii function ka shaqada inoo sida inter baan leenahay kadib waxaan qornaa data table dadna waxaan leenahay isagana dt waa variable name ah ku mashquulin dt waxa doontaad ka dhigan kartaa xasuusanaysid kadib waxaan leenahay dt da.fill kadibna dt inta markaan sameeyno halkan aad ka bilaabmaysa condition waxay noo hubinaa waxaan leenahay if hadaba waxaan leenahay if dt oo data table kii hadduu ku jiro rowyadaas rows dadna waxaan qori doonaa indexyada labada index baan leenahay index 0 dot to string wuxuu leeyahay calaamadda function ka uu leeyahay baan leenahay marka number 1 haddii uu daatada soo akhriyaysaa ay marka sax tahay weyn true waxaad na tustaa message kan hadan leedahay successfully login hadaba haddii ay khaldan tahay maxaynu ku ogaanaa in userka ama passwordka midkood naga khaldan yahay calaamadda else waynu isticmaalnaa iyana sidoo kale leenahay message kadibna waxaan leenahay show dadna waxaynu leenahay valid login inta markaynu sameeyno waxaan ku noqon doonaa formkeeni halkan imika haddaynu markaan rangareyna aynu isdhaahno geli qoraal toos baa la arkaya passwordada had iyo goor way qarsoon yihiin marka waxaad ku dhufan doontaa text box-ka doonaysa passwordka qorto right click button properties-ka kadibna halkan waxaad ka eegi doontaa password character-ka deedna waxaad doontaad ka dhigan tusaale ahaan inta ugu badan dadku waxay ka dhigaan calaamadda xidigta intaasaynu saa ka dhigaynaa kadib bal haddaba aynu tijaabino waxaan leenahay run markaynu hadda saa u rangareyno waxaan ku qoraynaa username-keeni waa admin passwordka 1 2 3 4 5 kadibna waxaan leenahay login hadda wuxuu nagu yidhi waa successful walaynu khaladna haddaba passwordka ama userkaba aynu bedelo waxaan ka dhigin tusaalahaan khadar dadna waxaynu isnarigal wuxuu nagu yidhi valid login casharka ku xiga insha allah waxaan ku xidhi doonaa formkii labaad ee ahaa registrationka aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu